Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Talooyinkani waxaa qoray oday waayeel ah oo ku jiray muddooyinkii ugu dambeysay ee noloshiisa, waxayna ku bilaabatay sida tan: Digtoore, waxba ha ka welwelin. Waan ogahay inaan dhimanayo, mana rabin inaan halkaan imaado. Ayaga ayaa i soo qasbay. Fadlan ha iga welwelin. Timahayga way iga dhammaadeen. Waxaan ahay waayeel, adigana aad ayaad u yar tahay. Waxaan doonayaa inaan kuu sheego wixii aan nolosha ka bartay. Markii aan 4 jirsaday, waxaan u malayn jiray adduunka oo idil inuu aniga nagu saabsan yahay. Markii aan 14 jirsaday, waxaan doonayaa inaan adduunka oo idil xukumo. Waxaan isu haystay inaan noqon doono ninka adduunka ugu weyn uguna awoodda badan. Markii aan 21 jirsaday, waxaan doonayay inaan noqdo ninka adduunka ugu taajirsan. Markii aan 25 jirsaday, waxaan doonayay inaan helo jacayl. Markii aan 40 jirsaday, waxaan doonayay inaan cid walba caawiyo. Balse waqti xaadirkan adiga ayaan isbitaalka kula joogaa. Waxa kaliya aan doonayana waa inaan dhinto. Midda ugu muhiimsan noloshayda aan la iska indho tiri karin ayaa waxay ahayd inaan helo farxad. Waxaan u haystay qaabka ugu wanaagsan ee loo helo farxad inay tahay inaad dhegaysato cid walba iyo taladooda. Markii aan doonayay inaan jaamacadda bilaabo, waxaan jeclaa inaan barto cilmiga zoology ama cilmiga xayawaanada, balse dadkii ii dhawaa waxay igula taliyeen inaan barto cilmiga engineering-ka. Waana qaatay taladoodii, maanan haysan cid iga bixiso qarashka. Waxaan ku qasbanaaday inaan isku wado shaqo iyo waxbarasho si aan isaga bixiyo lacagta jaamacadda. Markii aan marayay semesterkii 3aad ee jaamacadda, way igu adkaatay inaan sii wado, waxaana go'aansaday inaan ka tago. Markii aan ka tagayna, dadkii igu qalqaaliyay inaan barto cilmiga engineering-ka ayaa waxay igu dhaheen waxaa kuu dhaantay inaad barato maadadii aad jeclayd ee cilmiga xayawaanada. Markii aan 28 jirsadayna, qof waliba wuxuu ii soo jeediyay inaan guursado. Qof walba wuxuu igu dhahay waxaad u baahan tahay inaad xaas yeelato. Kadibna waan guursaday. 6 sano markii aan qabay, carruurna ii dhashay. Kadib waxaan ogaaday in xaaskayga ay gogol dhaaf samayso. Waxaana arkay iyadoo ninaan diris ahayn qol kula jirta. Markaan weydiiyey sababta ay ii qiyaamayso, iyada ayaaba is xanaajisay. Anna waan xanaaqay. Maalintii labaad ayaan gurigayga ku soo laabtay, balse guriga wuxuu ahaa mid cidla, cidna maysan joogin. Waxay la carartay carruurteyda iyo ninkii deriska nala ahaa. Dib dambena isuma arag iyada iyo carruurteyda. Markaan 40 jir ahaa, waxaan helay qandaraas aad u weyn. Magacaygana waxaa laga sii daayay warbaahinta oo idil. Maalintii labaad gurigayga waxaa soo buux dhaafiyay inta saaxiib iyo qaraabo aan lahaa. Qof kasta wuxuu ka cabanayay dhibaato, waxayna iga wada deensadeen dhammaan lacagihii aan ku qaatay qandaraaska. Waxayna ballan ku wada qaadeen inay lacagtaasi muddo yar ku soo wada celin doonaan. Waxaa la dhaafay waqtigii ay ii qabteen inay lacagta ii soo celiyaan, balse way diideen inay soo celiyaan lacagtii. Waxaan dhammaystiri waayay shaqadii aan qandaraaska ku qaatay. Waxaa la soo saaray maxkamad, waxaana lagu helay dembi. Waxaana la ii jaray 6 sano oo xabsi ah. Kadib markaan ka soo baxay xabsiga, qaraabadeydii iyo asxaabteyda oo aan dartood xabsiga u galay ayaa iga kala dhuntay noloshaydii. Waxaan sameeyay hal qalad oo keliya, qaladkaasina hadda si aad iyo aad ayuu ugu muuqdaa. Waxaa laga yaabaa inuu kula fududaado adiga. Waxaan diiday oo iska indho tiray inaan dhegeysto nafsadeyda. Waxaan iska indho tiray taladeyda. Waxaan doorbiday inaan dhegeysto fikradaha dadka kale. Hadda waxaan ahay keligeyga. Run ahaantii way wanaagsan tahay inaad dhegeystid aragtiyaha dadka kale, aad ka qaadatid waqtiyada qaarkood, balse waa halis wax waliba aad ku dhaqantid inay ka yimaadaan dadka kale. Fadlan haddii aad ka heshay fiidiyowgan, like saar, lana wadaag asxaabtaada.